barnaamijkan iyo barnaamij ka foolxun mid si gaar ani ii taabatay iyo mid si guud ahaan beel ahaan noo taabatay horta waa igu jireen laakiin hadalkii guddoomiyaha waxaa ka mid ahaa in laba daqiiqo lagu soo koobo laakiin ani waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed oo meel walba joogto maantana daawanayso anaga Soomaali baan nahay Soomaalina saddex kama ogeey laba baan ku ogaa midkii saddexaad hooyadiisi wili ma dhalin haday jiriir tahay haday jilaac tahay midkii saddexaad hooyadiisi wili ma dhalin Soomaali haddii jilaac ay tahay haday jiriir tahay Soomaali laba waay labadaas waayo jilaac iyo jiriir waay mid saddexaad hadaa raadinaysiin hooyadiisi wili ma dhalin Allah ka keeno waxaan raacinayaa marka anaga muslim baan nahay Soomaali baan nahay Afrikaanna waan nahay jiraacadu intaasoo qabiil ay leedahay jiriirtan intaasoo qabiil ay leedahay liiskuma haasto ilaahay markuu na abuuray koonkan na keenayna xikmad asaga u gaar ah leedahay dan uu kala haa oo u gaar ah waxa ka dambeeyay ay aakhiro tahay waxa ka dambeeyay ay aakhiro tahay wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun markuu ilaahay dhahay ani ma aanan joogin ilaahay asagu hadlaayay ani adigu nagala hadlaayay madow iyo adaan gaali iyo islaan ayuu la hadlay nin dheer inin gaawo inin buuran inin dhudhuwanba ilaahay ummadaas uu la hadlay ilaahay wuxuu yiri wala tamutunna illa wa antum muslimun ani sheekh miiraali ahada laakiin muslim baan ahay wala tamutunna illa wa antum muslimun markuu ilaahay leeyahay idinko muslim ahayn ha iimaanina uu yiri idinko muslim ee aakhir iimaada ha dhimanina idinko muslim bay ahayn mar ninkan oo ilaahay anaga kontraadka noogu soo dhiibay haddaan nahay Soomaali haddaan nahay muslim Soomaaliyeed oo jireer nahay kontraadka qabiilka loo soo dhiibay jireer hala dilo hala dhaco maxaa yeelay sidii loo uumay ayaa gaf ah idii kontraadkaas aayad quraan u fasaxday rasuulka sunnadiisa u fasaxday aabay aan taas raadino ilaa aankan waana laahi maxaa loo dilaa maxaa loo dulmaa maxaa loo dhacaa maxaa loo yasaa maxaan galabsanay adoomo ilaahay leebanahay ilaahay aawud buu ku yiri jira hadaa tahay anana jireer hadaan ahay ilaahay aawud buu igu yiri taasana binaadinimadaydan ku sifaysan tahay maxaa dhacay oo dambiyaan galnay oo wadankan Soomaaliyeed hadaan anaga Soomaalinahay jireer aan nahay jireer qabiil ma aha jireer waa tin adeeg weeyaan jireer qabiil ma aha waa jireer tin nugeera lagu jeedaa laakiin waxa lagu safeynayaa aniga jireernimadayda inay qabiil tahay oo liigu gumaadaya liigu dilaya liigu dulmaya guurkaaga hadii adiga aad sida ilaahay raali ka yahay adiga aadan u rabin anaga muslimnimadaas aan rabnaa hadii jecelkii xaqi iga galay gabar muslimad Soomaaliyeed oo walaalkeedii guursadayna hadii darta sababtaas ay dilka noqotayna I'm sorry guur halaalan doonayna sidii islaamka ogol yahay doonayna sunnadayna jidaysay aan doonayna hadii la waayna jireerka naftirkiisa waxaan leeyahay ilaahay markuu idin abuuray jireer rag ee ma abuurin jireer dumarna uu abuuray dumarkiina ku quruxsan guursada hadii halku insaan yahay maslaxada meesha ku jirtay maxaa yeelay yani ma aragtay yani waa wax ka baxsan bini'aadanimada islaamnimadana ka baxsan Soomaali shalay islaam ma noqonin yaa Soomaali shalay islaam ma noqonin laakiin aqeedada Soomaaliyeed islaamnimada maanta waxa ka weyn qadiyada qabiil dhaqanka Soomaaliyeed ka weyn waxaana loo nacabahay fiiri waxaan idin tusinayaa aruurta yar yar Soomaaliyeed noocwal balan meel ay kasta joogan mii magaala ayagoo waraabo arkina la leey waraabo waa kan hayay waa lagu hurdisiyaa waraabina indhaha ma saaran aruurtaas aruurtuna waraabo ma arkin laakiin waa lagu hurdisiyaa waa lagu baqsiyaa way ku baqaan gabdhaha ayagoo ma aragtay jiraacda mii magaala haday joogaan maqash ay raacayaan la leey maqalay warlay ma lagu waramay wixii jir arlada waa bariyo dadku markii la leeyahay jireer ha guursan jireer waa saas waa negative stereotype baa lagu shubaa
war haddaan guursano annaga maxaa halleynayna haddii nala guursadona maxaa hallaabaya marka eri idaale eregeed ma dhalow iyo dhahaanoon idaha ari'ad ma dhalo haddaan inaan isguursanaynin aad rabtiin idaha ari'ad ma dhalee bal idaha ari'ad ha laga keeno nan miilka yasaw maslaxaada maka taliya waa dhahaanoon mayka dhahane waelna hantisma mooga jireer meel kasta dalka soomaaliya roogtan islaamnimadiina islaamnimay tahay mana ka bixi kartiin islaanaana tihiin mana ka liidataan islaana tihiin soomaalina waa tihiin guura la ii diidayna islaamnimada oogama bixi kartaan gabara la ii diiday liajli jilaa way ma guursana islaamnimana loogama bixi karo soomaalinimana loogama tagi karo weligeynana islaanaan ahaanayna weligeynana soomaaliyaan ahaanayna weligeynana afrikaanaan ahaanayna haddaba waxyaalaha fara badan oo ummadda ani aan khaasatan matalahayo soomaali weyn ka sokow waa ummadda aniga camal oo jireerta jireer qabiil ma anna maxamed nuur istiina liidhahe shambarana qabiilkay way ma shambarada isin inkuwareetan in aan shambara liidhahaw ma beesha aan ka dhaladii oo jubbooyinkaas degaayana may la dhahe shambara shanta qabiil iyo todobada qabiil markii la iska daro tuman lamadaas jif iyo may la dhahe shambara marka aniga beeshaasaan xambaarsay mashuungulu gaar way shambarana gaar way beesha anaka dhaladii markii aan hadda siin sharo shambaraada la sheegoy majiindo manyaasa milima mukuwa mayaabo makaale makoonde manyamezi waxaas tuman ilaa 12 qabiil way haddii rabtan fan an araga haddii rabtan fan in aragtan maayda an hawar gidir makasay درس ما هاي نبرنا من ولا دكتور من ذكران لكن تقال أنا هور جديد بدري يعني هور جديد جلال لا بيتم قبيل جم يبري إيه هور جديد أنا هاي لا تديجيان هدان مقلي هور جديد يا وي سومالي ويا كتاي هور جديد كتاي هور جديد ما هو كل بعد إير سليمان يوهي لما ذا كلبا أنا من تانا هاي كوشة ما هم كوشة لما سومالي من وين هدان دارود بيهن ما سومالي مهمية هدانا هبي أهل سومالي مهمية هدانا در أهل سومالي مهمية هدانا الرحوين أهل سومالي مهمية سومالي أنا هاي أفريقيا كهاي نوعاس أهاي سومالي كهاي جرير أنا هاي جلع وي ما جرير تنتاس وموياني قبيل كيغ ما أهل جرير أنا إلهي حكمتي سيانكو أبورنا إلهي حكمتي سيان دنيا كجوغنا إن عاودة إلهي عاودة أبو يردتك عاودة نحي أمودة سودان إدي ديدين وديدين وقالوا إدي عاودين ويرميسي ومسلم كواسانا إمام إلهي إيقو معنيستي وانا كفر حسنها وانا آمين سنها إيمان كيغانا كو دقل وانا كفر حسنها الحمد الشكر إلهي ما أنت وحي إيقن نصيب بدل بأن دنيا إنو سنكيننا آمين سنها وركي لقره وإدي إلهي عاودة إدي ديدين مركي لقره إدي إلهي عاودة ديدين يا كهون إدي إلهي معرفة عقيدة دي سدين الإسلام كن الجبيسي لكن قولة ترتوه الجبيسي يا كهون أنا قبل إذا جلاء مديرين حسوي ديستان حديثين الديدين إذن كإذن تعالى أنا إلهي دين تيسي كما بحايو سنود رسول كم جبنايو جبر جرير ننكي سوي ربو أنا هاي إمامه لذي وما حريصنا لكن وحلذيهن قبل سنجع اللذي هلئي دون أخيار صوت درسوسي جدك إسلام تحير كسوماليا دا صومرة وهي أنك نلغو سمين ما سمينينو أنا وإلهي كبقينو من ندعي دون إن شاء الله تعالى وحروا أرنير أو مريكا كتادينا إذن شيئو ويل ولال كيغا مركان داداب نلغا قادين مريكا كنلغي iskuulu aada gabar oo adiga dadka ajaanibta ah oo aan muslimna ahayn oo cadaanka ah ay isbarteen xaafadoodana waa la aada gabadha wiilkana xaafadiisa markii la soo aado islaanta hooyada wiilka dhashay waxay leedahay markii oo guriga la imaado wiilkii iyo gabdhahan wada socdaan hooyada guriga iridda wiilkeeda kaliya ka furay waxay leedahay adiga la soo gal
gabdhahan naga daa maxaa ayuu dhahaa moogtahay maxay leedahay anagu markaan Soomaali roogna gabdhaha jilaad inaan ku guursano nalooma ogoleene adoo hadda anagoo Soomaali ka imaanay gabdhahan adaanka Ilaahay maxaa kugu salladay naga dhaaf kuwan tabar uma helayna hadhow kaleetay dhibaatadeeda nagu badanaysaa wiilkeeda soo xareysanaysa gabdhihiina banaanka looga tagaa markaas gabdhii waxay leeyihiin what's wrong with your mom wiilkii law mid door u leeyahay hooyadiis in gabdhahan aan raaco hooyadooda markaan agtoodii iyo aaboodii walaalood aan ay joogo dhib kuma qabo wax dhib aan ka qabo male waa li adeega biyaha li siina fadhigayga waa li marxabeeya si fiican la dhaqmaa laakiin in maanta adiga ilmahan xaafadeyda yimaadaan aad ku celiso ani ima qabatee sooda ama aan raaco labadii marka hooyadii wiilkeeda waa ka tagay 3 sano wuxuu la jiray gabdhihii uu la jiray wiilka in la soo celiyaa la rabaa adiga alla barya la sameey waxa la reebay wiilka iyo gabadhan in la kala celiyaa la rabaa 3 sano markuu maqnaa wiilkii waa yimid gabar cid lagu daray taasna waan aragnay waanu guursanayna laakiin anagoo muslim oo adal ajnabi joogno oo Soomaali nahay oo haddana ma aragtay yani mashuuguli ama shambara aan kala nahay oo Mareykanka joogna gabdhihii adaanka naloo ogol kuwaanagan haddii naloo diido waa ayaan daro laakiin looma dhimanayo haddii loo dhimanayo tan oo kale la dilka foolxun waay adduunyo xumo aakhiro xumo dhahanana adduunyo xumo iyo aakhiro xumo waay ninkii waxa sameeyay Ilaahay agtiis waxa uu yaala asaga yaqaan marka gudoomiye waa mahadsan tahay mudanayaal iyo marwooyin arin kala raba inuu ku soo koobo anagoo wasiir Jubbaland ee Kismaayo ka yimid oo diyaarad Kismaayo ka soo raacay waxaan imid eelboorka Muqdisho hadda ku hor eelboorkaas Muqdisho markaan imid waxa la iigu yiri dadkii 30 qof oo diyaaradda saarneen ka har adiga waa la ii celiyay aniga waayahay baasaboor Soomaali diplomatic waan wataa baasaboorkaada keena liidhay baasaboorkii aan dhiibay wiilal yar yar oo Bagreekshinka joogan ayaa aniga maarta igu mashquulay baasaboorkii haddaan bixiyay way u jeedaan qol yar ay ku jiraan dhaxdoon waxaan noo dhaxeeyay muraayad yar oo meel yar ku burburaysa oo baxal yar oo kuusano isku sawirana noo dhaxeeyay wiil wuxuu fiirinayaa baasaboorku saan u fiirina wuxuu leeyahay kan baasaboor diplomatic buu wataa kii kalena waa maqlaya aniga wuxuu leeyahay war habarta u sheegay baasaboor Soomaali diplomatic wuxuu sheegay $50 keende marka asaga af Soomaali uu ayna marka ila hadlaan af Ingiriisi igu la hadlaa أنا رواية لأنه أركاي استرنجي إجماع هن وحن موقع الصومالي أرضي بان الله سواهاي وتضرب بقول واحد لجير أرضي كل جيجا صومالي بانتو كاسكول اللي صوت يجينا وحن كصومالي أن أوجاي مركا إلهي مقادر تيس البوركاس وحد عذي إلا شنس أسوح نما يهب أما كودي أسوح نما إلا كودي قلب نما البوركاس سنجوجي واللي يجوا ورا مر أنا وحن استاجي حدي باسبور كي قاعد في رسي وياه باسبور صومالي وأدنى يويديسي $50 حلوان ما هنا لكن وزير معمول قبلات كسودان أو شقة نويمد مقدسه $50 local flight لو بحنا إنتي كذا خرنت عن كويري مركي يعني الدستور كسومالية أم بحيه مديدنه $50 أو local flight from Kismaayo to Mogadishu أن إنتي كبحنا يا إيشيا مركا وإيقو كان إن وايين أنا نواسين وايين وهاي قارتي كودي يبركي قلبنا ما يقارتي ما هاد علي أمي صمتين وحيلين نمكن Soomaali buu noqday adiga iyo nimanka isfahma meeshana 9 saac la xiri jiray hadda ma aragtay habeen ilaa 24 saac eelboorkan shaqeynay ma ahayn waxa la isku kadeeday ana dhaafi maayaan ku yiri ilaa ma baasaboorkan Soomaalinimada aniga la igu haasto oo la leeyahay ninkan ajaanib way Ugandes way la leeyahay Ugandes hadaan ahay in Ethiopian tahay yaa ka xaqiijin kara ani Ugandes ab igu tiri adina Ethiopian tahay yaa ku xubin kara marka adiga waxay noqotay waa maalintii igu horeysay gaari bullet proof ah eelboorka la iga soo saaro ra'iisul wasaare Abdiweli iyo markii aan iga soo saaray marka dhibaatooyinkaas amal wax la mid ah jiro salaada la iga soo saaray xildhibaan aamus aan wiilgeyga maxadan in badan ah aniga ninkii salaad asagoo taagan la soo qabtay aan ahay idinka wax ma ogidin مساجد وين إسبهيسك جناستي الله ورحمته عبد الرزاق حاج حسين جناستي أنا بوتاعن أقلتي اللي يسوع قبته جناستي لوجرو وربحار الله أكبر اللي مقتل أنت اللي يجيده ورص هذا بلوجرو محاول لك أنت تجي
ku yidhi salaad baan ku jirnaaye igama harayo waa igu soo laabtay war ukaadi baan ku yidhi mar saddexaad igu soo laabtay nin dhinacayga joogo cabdiqani la yidhaahdo oo saaxiibkayga oo wasiir isla ahayn markaas war cabdiqani kan la hadal baan ku yidhi cabdiqanina asaga nama xishoona wuxuu yidhi war muwaalantahay waa wasiire ka leexo salaadaan ku jirnaa ogow hadday janaasad maxaa liigu mashquula annaga marka soomaali baan ahay janaasadii salaadan ku fakan waayo warnamiyaha intaan joognaa hadda way sheega bal liajli madaxweyne xasan sheekh gadaashiisaan taagnay anina ujeedadeeda xasan sheekh madaxweynaha gadaashii istaag ma ahayn madaxweyne xasan sheekh gadaashii istaag ma ahayn salaadii faralka markaan tukanay ayaa si loo dudurqay aan ku aaday marka haddaan ku aadayba salaadii aan lagu jira maaliska kay dhaafo waa ligu mashquulay anana waa ku mashquulay moogtahay marka salaadii markii laga baxay waxaa la yidhi war waa sidee ugandheesaan u malaynayna kulaha waan istaagay waxaan ku yidhi warnamiyow haddii ugandhees ii malaynayo bal ugandheeska haddii muslim yahay masaajidka soomaaliya inuu ku tukado looma ogolo miya marka anyway markaan gudoomiye waxaan codsanaya inaad si fiican la ii siiyo aniga arrimahaas ee wax ka daran kasii hadlo